حسدين وحسدي إنجليش تا عشان ما إن شاء الله تعالى واحد قدمنا قيد من إنجليش تا ولا تنسيس إن شاء الله تعالى فوكس واحد صار دونا مركب أولاد وهذا دوحة مركب برا صويا نذكر واحد ويحيي مركب واحد قبل أن تعرف في سنة تنس محوري واي definition of tennis واقعي حدة تنس واحد ويصفر وفعل used to indicate the وحوي وحنوع عدينا يا وقتي وقت عديوي مركا كلمة tennis comes from Greek word وكلمة Greek word واللاتين كان مركا إن شاء الله بس قبل عملنا types of tennis انتهى خيريا عبر نوعية ديسة there are 12 tenses لبيه 8 tenses جرا in English لغة إنجليزية but say شيء most full usage tenses كوالو استعمال كبدي وحنا قريان past simple أي ذاتك عبدنا يقالان أم بس simple past simple لما هو آخرين كلام واي present simple present يو future simple أفر تاساوكو عنسن لم يتمكن ولا استعمال كمان لكن أنت واحد فوكس كسرنا أنت وقوع عنسن واي simple present أيام قبل أوتنا إن شاء الله تعالى simple present محوي واي تالس وحنو شيء for an everyday action وحقبت معلومة بس ونقطة هذا معلومة بسهولة كتاب معلومة بواحد موسي استوى كذا واي هذا هو لي تنس كستا هو لي علامة مقارنة السبب محاول علامة signs of simple present محاول علامة واي always often usually sometimes أفر تصور عاصم واي there are two types of simple present لابد يبود أي وقت يا simple present أو عاصم واي simple present 1 يا simple present 2 simple present 1 يا simple present 2 marka labada simple present 1 iyo simple present 2 wuxuu yeelan doonaa laba formulo laba qaacido kala duwan oo kala duwanaanaya way aan ku horeyno simple present 1 wuxuu noqonayaa waxa weeye waa ficil maalin walba dhacdo soo noqdo kii hore iska mid bi way formula qaacidadiisa wuxuu noqonayaa waa subject plus infinitive plus subject kuna wuxuu noqonayaa I, we, you, they, he, she, it. Way. Marka pronoun-ka loo qaybiyaa subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun. Marka isagu tensesku badanaa waxay qaataan subjective pronouns-ka. Way. Question of simple present 1 maxaa su'aal lagaga dhigaa ardayo waxaad ogaanaysaa in lagaga dhigo simple present 1 do baa markasta isticmaalaysaa jumlada oo insha Allah taala example-ada inoo soo socdaan ka arki doona way negative maxaa lagaga dhigaa hadaba negative iyo diidmo maxaa lagaga dhigaa don't oo loo soo gaabiyo marka intan uga soo gaabsantay asal ahaan waxaa yidhi do not okay why subject that he take simple present 1 حقاتا subject يا حقاتا وآي حقاتا we حقاتا you they I وأديك we وإنك you وأديك they وإياك وexamples إن شاء الله تعالى ساد سوى ناكسن وفهمتان إن شاء الله حقاتا دونا تسأل يا شيء محاول تسأل واي I wash my shirt waxaan mayray garankayga marka formulada waa inaan kala soo dhex bixi karno simple present 1 waxaan inuu yahay maxaan ku garanaa waxaan haynaa subjectigii oo ay subjectigii waka qaacida subject waa meesha ka helaa waa subjectigii way kalabaad waxa weeye infinitive maxaa looga jeedaa وفعلك قد كوبان واحد كده verb 1 يا verb 2 يا verb 3 present past
passive participle way marka waan noqdo godka koobaad way you I wash my shirt wash marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa oo godkii koobaad ee ficilka my shirt waa objective my shirt kalankay way maxaa la maynay waa odanaysaa objective marka doonayso inaad ogaato maxay baad ku ogaanaysaa way you play football you adigu play wax ciyaartay football badi cagta you one I know subjectigi balayna waa fab one football waa objective way marka objective marka doonayso inaad hesho saad ku heli karaysaa way isweydiin kartaa objectigi maxaad ku helaysaa waxaad ku helaysaa you play football adigu maxaad ciyaartay waxaad ciyaartay kubadda maxaa noqonaysaa taas objective noqonaysa okay way haddaba iyadoo su-aal lagaga dhigay ayaan doonay inaan ku darno do I wash my shirt anigu ma maydhi karaa garankayga do I wash duudan waxaan markii hore soo sheegnay in question lagaga dhigo do I wash my shirt ma maydhi karaa garankayga they build iyo waxa dhiseen the house gurigii kana waa subjectigii kana waa ficilkii koobaad the house na objectigii we read our lesson waxaan akrinay casharkeenii insha Allah waxaan ku dari doonaa iyadoo negative ku jiro ama diidno way they do not play football يوم يعيار محامك تفكرين don't do not يوم يعيار marka insha Allah taala aan soo qulaasay 10 kin maanta waxaan qaadanay wax reeyna tennis muxuu tennisku waa waqti sheeg waqtigu inoo sheegaya qaybiis waxa weeye 12 qaybood laakiin waxa ugu caansan afar ugu caansan simple present simple future iyo simple past way sidoo kale waxaan u qaybinay simple present tiga labaan u qaybinay labadaas oo kale ah simple present 1 iyo simple present 2 simple present tigu muxuu qabanayaa aba muxuu ka hadlaa telephone and everyday wax kasto maalin soo noqonayo la qabto ayuu ka hadlaya signs of simple present maxaa u calaamada waxa shayna afartaas oo caansan waa always often usually sometimes way labada qaybood baan u kala qaybinay qaybta dambeysha oo soo socota simple present 1 baan ku horeynay qaacidadiisa baan soo sheegnay waa subject oo loo geeyay infinitive of fab1 bala subject oo mafcuulki loo geeyay question maxaa calaamado ah way do baa laga dhigaa negative diidmada waxa laga dhigaa do not وكان تصالياشي أنصاب على إن شاء الله واحد جينا إلى الأرض وفهمتي خير من سورة جينيا يجينا على لسان thank you for everything